إفراح علي كريح oo kamid ah qurba joogta Somaliland ee wadanka Sweden horena xildhibaan uga soo noqotay golayaasha deegaanka ee wadankaasi ayaa dugsi waxbarasho ka hirgelisay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Sheedaha dugsigaasi ayaa waxay ugu talagashay in carruurtu ay ku bartaan barbaarinta iyo waliba waxbarashada dugsiga runtii hamigayga in badan buu ku jiray halkan sidoo ogsoontahay waa halkan ku dhashay waxaan doonayaa inaan ka dhigo dugsi lagu barbaariyo carruurta galaaska maxaa la yiraahdaa markay yihiin 4 jeer ilaa 6 jeer dugsi dhexe iyo dugsi sare labadaba saddexda qaybood baan rabaa inaan u kala saaro haduu Ilaahay awood la karaali noqdo marka waxaan u arkaa in loo yahay wax loo baahan yahay anagu hadaan qurba joognahayna waxaan rabnaa inaan soo celino ilbaxnimadii aqoontii aan ka soo dhaxalnay xagga aan joogno waxa aanan hubaa inay tahay deynana wadakayga aanan iloobin oo waajib naga saaran ay tahay Ifraax ayaa sheegtay in ardayda dugsigan ka baxda 5 kamid ah shantii sanaba hal mar ay u dirayaan deeq waxbarasho jaamacadaha wadanka Sweden hawsha waanu yara galnay runtii aniga inaan kale xisbi ahaan waan u galay way xisbiga waxaan ka tirsanahay social dimuqraadiga la yiraahdo hadda حكم حاكم كا أما محل الثلاثة وطن كهيا هاد مركا قلوين كمركا عن لك عشرة جامعة أبسالة ليدا هذا وطن كسويدان كتالو جامعة أود وينايت هاي برنامج كاسينا وكسرين شري وقت دولة الصومالية أهيد وحن دوننا تالف تجدي النسوع إسبانيسينو وحنا نملين ناين يجوا يدكسوني هنا الصومالي لان تاي وضعوا نبضة وإن دبعت كشرين هيرجلنا إن عرورة عشان عرورة أنا قعدنا شنتي سنة ضد بمر ترى دكسية بدن أو مجال هرجيسة كوي على قار بريفديهين قارنا دوليهين muxuu kaga duwanaan karaa kan runtii anigu waxaan ahay san ku sheegayba qurba joog waxaan ahay qof macallimada waqtiyadii ugu dambeysay sanadadii ugu dambeysay 8 sanadoodna waxaan ka shaqeynayay iskool waxa aan ogahay inuu kaga duwanaan karo had iyo jeer xuquuqda ilmaha wayna qarinaa in ilmuhu ma garanaysa xuquuq badan yeesho imika bilmatalan oo kale ilmuhu markuu afaji yahay guriga lagu hayaa in ay yimaadaan iskoolkan waayo waxaan hubaa 4 jir markuu yahay ilmaha maskaxdiisu aad ba u furan tahay marka saddex luqadood baan bari doonaa insha Allah billahi kareem Soomaali Ingiriisi iyo maxaa la yiraahdaa Carabi anako barbaarintii kalena ay garab socon doonto marka wuxuu kaga duwanaan karaa ilmaha yar waxbarashadu ay ku plus tahay inaan u sameeyno macallimiin dheeraada ama macallimiinta dhigi doonta insha Allah billahi kareem waxay noqon doonaan macallimiin waayo aragnimo iyo ma garanaysa khibrad u leh qaarkood inta badan ku soo barteen wax wadanada dibadda Xasan Galayd Honkebel TV Hargeysa